sanadkan lixdan iyo lix guurada aas-aaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu si gaar ah uga duwanaa sanadihii hore iyadoo si muuqata loo soo bandhigay awood ciidan oo casri ah. Munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay ciidan leh tababar dhammaystiran oo isla helaya jiibta gaardiska, gaadiid gaashaaman, taangiyo dagaal iyo diyaarado noocyadooda kala duwan sida miigyada iyo helikobtarada, kuwa oo hawada sare ka sameeyay bandhig muujinaya diyaargarowga buuxa ee ciidanka. Tani waxay caddayn u noqotay horumarka dhabta ah ee laga sameeyay tayeynta iyo qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ka hor inta aysan bilaaban munaasabadda weyn, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay garab taagnaayeen wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa xariga ka jaray taliska taakulaynta ciidanka xoogga dalka oo lafdhabar u ah sahayda iyo taageerada ciidanka. Sidoo kale madaxweynaha ayaa dhagax dhigay xarunta hay'adda daryeelka agoonta ciidanka xoogga dalka, taas oo muhiim u ah daryeelka ubadka halyeeyadii naftooda u huray qaranka. Intaa kadib, madaxweynaha ayaa soo gaaray wasaaradda gaashaandhigga oo ay ka dhacday munaasabadda xuska sanad guurada 66aad ee aas-aaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa madaxda dowladda ee hay'adaha kala duwan, wakiilla ka socday dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدحوينه سند guurada 66aad ee aas-aaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa diyaar u ah inay maraan noocyada ciidamada kala duwan xoogga dalka Soomaaliyeed. Bandhigga waxaa qayb ka ahaa kooxaha fanka, ciyaaraha iyo caafimaadka, taas oo muujinaysa in ciidanka uusan ku koobnayn qaadashada hubka balse ay ka mid yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan. codkooda ayaa ah kuwa ay argagax ka qaadaan marka ay maqlaan argagixisada iyo inta damacyada shisheeye wadataba. waa kuwii dheecaanka iyo dhiigga u ahaa geesiyaashii baasha dahabka ka galay qaaradan Afrika iyo dunidaba. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay ciidan ku suntan adkaysi, geesinimo iyo nafurnimo. Wuxuu xusay in dabaaldegga sanad guurada 66aad uu yahay mid ka tarjumaya guulaha ay ciidamada ka gaareen difaaca dalka iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. madaxweyne waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiil xigeenka alifleeda iyo dableeda ciidanka oo heegan ugu jira difaaca dalka, gaar ahaan kuwa ku sugan furimaha hore ee dagaalka, kuwaasoo maalin iyo habeenba u taagan badbaadinta shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale mudan madaxweyne waxaan halkan ka xusaynaa dhammaan halyeeyadii naftooda u huray dalka, kuwaasoo dhiigooda ku qoray taariikhda sharafta leh ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, isla markaana suuro geliyay inaan soo gaarno halkan. waxaa waajib nagu ah excellency dhammaanteen inaan sii wadno jidkii ay noo jeexeen, kana dhabayno dhaartii aan u dhaaranay ee ahayd difaaca diinta dalka iyo dadka. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa tilmaamay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta marayaan heerkii ugu fiicnaa. mudane madaxweyne ciidanka xoogga dalku maanta wuxuu marayaa marxalad dib u dhis, dib u habeyn iyo tayeyna. waa ciidan dib u soo kabanaya kaga soo kabanaya duruufo adag uu soo maray, kuna socday jihayn cad oo ku dhisan himilo qaran, hoggaan leh aragti fog iyo go'aan adag oo lagu xaqiijinayo in Soomaaliya ay yeelato ciidan awood u yeesha inuu la wareego amnigeeda iyo soo xiridda xuduudaheeda.
horumarkan muuqda wuxuu ka dhashay dadaal joogto ah iyo ka go'naanshaha dowladda aad hogaamisid ee dib u dhiska hay'adaha amniga. waxa uu ka turjumayaa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo sida ay dowladdu uga go'an tahay in ciidanka Soomaaliyeed mar kale noqdo cudud qaran oo difaacda dalka, sugta amniga, kana xoreysa deegaanada ay ku harsan yihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin tiirka ugu muhiimsan ee badbaadada ummadda Soomaaliyeed. wuxuu xusay in geesiyaasha ciidanka xoogga dalka ay badbaadiyeen malaayiin Soomaaliyeed, isla markaana taariikhda ay qori doonto doorkooda geesinimo, isagoo hambalyo u diray dhammaan ciidamada. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka niman qoryo wato oo wax dila ma aha, cadow iyo midku doon baade naf dila ma, waa naf badbaadiyayaal taariikhduna ay suntan tahay muuqatana oo la arki karo badbaadada ay soo sameeyeen. maantana meeshii taagan yihiin dowladnimada dalka markii la badbaadiyo, waxaa la badbaadiyey 20 milyan oo Soomaali ah ayaa naftooda, amnigooda, sharaftooda, haybadooda la badbaadiyey. intaasoo dhan wax isku qaban karana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka jira. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed u sheego maanta waxaan joognaa meel ciidankeenu ayaguna ay kalsooni isu qabaan, annaga madaxdaana aan kalsooni ku qabno oo aan waajibaad siino keligood inay meel aadaan, shaqo qabtaan, cadow meel lagu soo sheegay cawo madow inay inta dheelmadaan ay aadaan oo ay soo burburiyaan oo ay yeeleen. inta dhimanna muddo kooban waa rajaynaynaa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa bilada geesinimo iyo howlkarnimo guddoonsiiyey saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kuwa oo lagu maamuusay kaalintii ay ka qaateen difaaca dalka, hogaaminta iyo fulinta howlgallada muhiimka ah. xuska sanad guurada 66aad ayaa si weyn looga xusay gobolada dalka oo ay ka mid yihiin Sool iyo Sanaag, Mudug iyo Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Baay, Bakool iyo Gado. ciidanka ku sugan goboladaas ayaa soo bandhigay dhoolatusyo iyo munaasabado muujinaya heegankooda, wadaniyadooda iyo diyaargarowga ay u leeyihiin difaaca dalka. habeenkii waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay munaasabad casho sharaf ah oo uu ka qayb galay ra'iisul wasaare mudane Xamse Cabdi Barre iyo mas'uuliyiin kale. munaasabadan ayaa lagu muujiyay qiimaha iyo kaalinta ciidanka xoogga dalka, iyadoo sidoo kale lagu amaanay geesinimada iyo nafurnimada ciidanka. ra'iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyay in dowladda ay xoojin doonto taageerada iyo tayeenta ciidamada. ayagana runtii ammaanayaa, hambalyeynayaa, bogaadinayaa guud ahaan ciidamada qalabka sida oo runtii si wada jir ah uga qayb qaatay guulaha aan ku taagannahay maanta, oo aan u jeedna caawa hawadan macaanka badan iyo halkan aan ku caweynayno iskama imaan, laakiin waxay ku timid dhiig wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed, dadaalka dowladooda, iskaashi guud oo dhammaan qaybaha ciidamadeena qalabka sida iyo shacabkeena Soomaaliyeed oo garab istaagay. wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa shahaado guddoonsiisay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii loo aqoonsaday hay'adaha ugu cagaaran sanadkan 2026 ee si hufan u hirgeliyay qorshaha dhirbeerista dalka, taas oo qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo ilaalinta deegaanka iyo la tacaalidda isbeddelka cimilada. wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Bashiir Maxamed Jaamac ayaa ku bogaadiyay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed doorka muuqda ay ka qaateen ilaalinta deegaanka, gaar ahaan dhiirigelinta dhirbeerista, ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah iyo kor u qaadidda wacyigelinta bulshada ee la xiriira muhiimadda deegaanka, isla markaana ballan qaaday inay ku wareejin doonaan ilaa 1,000 geed si ay ugu beeraan goobo ay ayagu u qorsheeyeen. gabagabadii xuska 66 guurada aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
ee sanadkan 2026 wuxuu noqday mid ka duwan sanadihii hore isagoo muujiyay awood ciidan oo dhab ah qalab casri ah iyo horumar muuqda cadowga gudaha iyo dibadda waxay u noqotay maalin madow munaasabadan waxay sanadkan ku soo aaday iyadoo ciidanka qaranka ay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee halista ku ah shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa si wada jira u muujiyay in ciidanka xoogga dalka ay maanta yihiin ciidan qaran oo leh awood himilo iyo karti ay ku difaacaan dalka dadka iyo diinta isla markaana ay sii xoojinayaan dadaalada lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya